Assalaamu calaykum. Muslimiintu waa kuwo koraya tir ahaan si ballaaran, waxaanay kaalmaha ugu horreeya kaga jiraan dadyogu tiradoodu sii badanayso sanadba sanadka ka dambeeya. Haddaba waxaynu daawadayaal warbixinteennan kaga hadli doonaa tobanka waddan ee ugu muslimka badan caalamka, sida ay qortay jariiradda World Population, inagoo ka bilaabi doona nambarka tobnaad. Suudaan waxay kaalmaha kala horreynta kaga jirtaa nambarka tobnaad. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay gaadhaysaa 9,555,000 oo qof. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira waddanka Algeria, waana waddan dhaca juqraafi ahaan qaaradda Afrika, gaar ahaan waqooyiga qaaraddaasi. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay gaadhaysaa 41,240,000 oo qof. Turkey wuxuu kaalmaha kala horreynta kaga jiraa wadamada ugu muslimiinta badan caalamka kaalinta sideedaad. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay gaadhaysaa 74,432,000 oo qof. Iran waxay kaga jirtaa kaalmaha kala horreynta wadamada ugu muslimiinta badan caalamka kaalinta toddobaad. Tirada muslimiinta ku nool waddankaasina waxay gaadhaysaa 82,500,000 oo qof. Masar waxay kaga jirtaa kaalmaha kaalinta lixaad, waana waddan ka mid a wadamada ugu tunka weyn caalamul islaami. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay kor u dhaafaysaa 85 milyan ilaa 90 milyan oo qof. Nigeria waxay kaga jirtaa tirada kaalinta shanaad, waana waddan ka mid a wadamada qaaradda Afrika, gaar ahaan waa waddanka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Tirada muslimiinta ku nool waddankaasi waxay gaadhaysaa 95 milyan ilaa 103 milyan oo qof. Kaalinta afraad waa Bangladesh, waa waddan ka mid a wadamada dhaca koonfur bari qaaradda Aasiya. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay gaadhaysaa 153 milyan iyo 700 oo kun oo qof. India waa waddan ka mid a wadamada dhaca qaaradda Aasiya, waana waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunka oo dhan. Tirada muslimiinta waddanka ku dhaqanina waxay gaadhaysaa 200 oo milyan oo qof. Bakistan waxa uu kaalmaha kala horreynta wadamada ugu muslimiinta badan caalamka kaga jiraa kaalinta labaad. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay gaadhaysaa 212 milyan iyo 300 oo kun oo qof. Kaalinta koowaad waa waddan dhaca koonfur bari qaaradda Aasiya, caasimadiisuna waa magaalada Jakarta, waana waddanka ay tirada ugu muslimiinta badan ku nool yihiin caalamka oo dhan, waana waddanka Indonesia. Tirada muslimiinta waddanka ku noolina waxay gaadhaysaa 231 milyan oo qof.